gobolka Minnesota maanta iyo Minnesota maxaa cusub hadda wararka lagu kalsoon yahay xaqiiqa qof gobolka Minnesota caan ka ahaa ayaa xabsiga loo taxaal waa kuma qofkaas waa wiil sharaf badnaa la yaqaanay wariyaha waa walaalkeen deeq darajo isagoo ka dhoofay airportka u socdo hooyadiisa xanuunsanaysa ayaa laga soo qabtay airportka wuxuuna hadda ku jiraa federal prison deeq darajo nin aan si fiican u aqaanay ayuu ahaa Soomaalidu warar badan bay isla dhex qaadaan been bay curiyaan anigu ma jecli qofka bil aadanka in been laga sheego sababtu deeq darajo ku xiran yahay iyo meesha wax ka khaldameen oo dhan ayaan idin sheegayaa ogaada hadaba maanta tadeeq lagu xiray dad badan bay ku soo socotaa dad badan oo is ogeyn ayay ku soo socotaa laakiin hadda markaa videoga dhageysataan qof walba oo dajabso meelaha aan ku tilmaamana garaac albaabada deeq darajo wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah ehlu salaad ah nin sharaf leh wariye ah qabiil iyo shakhsi nacayb iyo wax walba ka fog wuxuu ahaa deeq darajo wariyaha Universal TV ee gobolka Minnesota TV kalena uu ka shaqeynay deeq waxaan lagu xiray maxaa si aniga aan ka ogahay Cabdixakiin ahaan deeq markii la qaybinayay arimahan raashinka ee la abalay gareynayay deeq wuxuu arkay fursad furan oo lagu shaqaysan karo wuu abalay gareey deeq markuu abalay gareeyay oo uu doontay qabti ayaa ku dhacday iyadoo aan wax lacaga la siinin haddaba see ayaa lagu xiri karaa qof aan lacag la siinin taas inaan hadda idinka dhaadhiciyo ayaan meesha idinku soo fariistay dadkii organisationadan lahaa sida Sweet Amy Gerald oo kale ee laga abalay gareeyay dad badan oo waxa jira abalay gareeyay oo doontay markay abalay gareeyeen dadkii cuntadii bay qaar bixiyeen iyagii baaba qasaaro galay markay bixiyeen gadaal baa la idinka siinayaa baa la yiri magacoodii systemkiibuu ku jiraa dhagihiina fura waryaara magacooda systemkiibuu ku jiraa waa la diray lacagtii waa la soo diray lacagtii dadkan ma soo gaadhay may lacagtii waxaa dhexda ka qaatay agensigii ay ka abalay gareeyeen deeq ninaan aada iskugu dhownahay family friends aanu nahay xog badan aan u hayay Facebook live baan ku jiraa arrintii deeq baan ka hadlayaa waa ogahay I know okay dad badan ayaa doontay dadkii markay doonteen inay abalay gareeyeen qaar baa markay abalay gareeyeen fiiriyaya foomkoodii buuxiyeen wixii bay buuxiyeen agensigii bay u tageen 9 bilood qaar baa cunto qaybinaya shilin lacagan aan heli lacagtii waa soo dhacday lacagtii shakhsigan ma qaadanin agensigii la aamusay magaciisii qofkii inta ku jira waxaan garanayaa haddaba arrinta aan maanta aada uga naxsanahay gabdho aan aqaano oo waxaa jira 7 beri mise 6 beri iyagoo qaybinaya qabtii dhacday 6daas beri meel bay kiraysteen raashinkii bay iibiyeen waa soo qaateen jeebkooda isticmaaleen lacagtoodii waa soo dhacday oo agensigii baa la aamusay iyagina wixii waa ka baxeen ka warrama maanta
waxaa la xili doonaa oo soo socda dad badan oo iyagu lacagtii inta lacagi ka maqan tahay location kireeyey oo yani waxay kireeyeen meeshii lagu qaymin lahaa, waxay baygareeyeen shaqaalihii, waxay bixiyeen cuntadii. dad badan oo noocaasa soo socda, dad badan oo khasaara ku dhacay. ka warama adigoo intaa lacagtii bixisay wixii aan lagu siinin laguna xiray. ka warama soomaaliya, adigoo intaa lacagtii yani lagu xiray oo aan dambi gelin wax lacag aan dhicin. deeq darajo walaalkeen ilaahay ha fududeeyo. shaksigaan aad iyo aad maanta uga naxay, deeq darajo maanta aad iyo aad baan uga naxay. allah ha fududeeyo, laakiin deeq wuu abalay gareeyey, wax lacagana ma qaadan. qof kasta oo la xidhay oon dembi lahayn waa la soo dayn doonaa, laakiin intaan hadda lagu xidhin dhibaato iyo hirigna aadan gelin, dhowr arrimood baan idin farayaa. soomaaliya dhagaha furta. waxaa jira wiilal badan iyo gabdho badan oo walaaladaya oo soomaaliyeed oo abalaygareeyay brogramka. qof kastow adigaa maanta is-og meeshii aad ka abalaygaraysay, meeshii aad ka abalaygaraysay. qof kastow halo facebook live baan ku jiraa muksoowaca. qof kastow adigaa og meeshii aad ka abalaygaraysay. gabdhaha soomaaliyeed, hooyooyinka soomaaliyeed iyo waalidiinta soomaaliyeedow, waxaan idinka codsanayaa qof kastow maanta bax. hadda waktigii waa dhacay. ajensigii aad ku xidhnayd, qofkii aad ka abalaygaraysay hoostees, qofkii aad ka abalaygaraysay aad ajensigii u tag. ajensigii u tag, waxaad tidhaahdaa waraaqahaygii aan kaaga abalaygareeyey isii, ina qor in aadan wax lacaga isiinin. taas number one. safiya aadan way xihan tahay walaal, way xihan tahay ayagaan. taas number one. number two, qof kasta oo abalaygareeyey brogramkaano waxaad tagaysaa looyarkaaga u tag, qareenkaaga u tag, la fadhiiso. magacaagu inuu ku jiro inaad abalaygaraysa u sheeg. dokumentigii aad haysay u gee. in aadan waxba qaadan shi qofoona qareenkiisa looyarkiisa yaan wax beena u sheegi. looyarkaagu waxa uu la xidhiirayaa FBI-da, waxa uu la xidhiirayaa qolada customka immigration-ka iyo meel walba. wuxuu soo baarayaa magacaagii inuu kelin yahay iyo magacaagii inuu wasaqaysan yahay. waxaa marka macquul noqon karta in aad ka badbaadid in lagu arastagareeyo oo jeeba lagugu xidho. marka aad tahay looyarkaagii war anigu waxba ma qaadan. okay, ta labaad, qof kasta oo intuu abalaygareeyey, qof kasta oo intuu abalaygareeyey lacag aan la siinin, isagu jeebkiisa isticmaalayay, sida gabadhaan hadda idiin sheegayo kale, 6 beri bay ku jirtay, meel bay kiraysay, cuntadii bay iibisay, shaqaalihii bay baygaraysay. almost iyada waxaa ka baxay $20,000 dhulkayna gashay, waa lagu xira. walaal qofkii safiya, qofkaan waxba dhicin waa lala talinaya. soomaali baynu nahay. qof kastow rasiidhadaadii aad cuntada ku iibisay, rantiga jeegaad ku bixisay, in aad jeebkaaga ka bixisay, lacagtaasi meeshay kaa soo gashay markii hore, qof walooba sii diyaarso. arrin kaleoo ka daran baan idiin sheegaya. haddaba waalidiinta soomaaliyeed een waxba galabsanin, waxaa jira qaar caruurahoodu hodeen oo ay ku qorteen. dadka beeshinka ah ee bildhinnada dhaadheer degan, dad waxaa jira caruurahoodu hodeen ama qof sharcigooda yaqaanay oo dhulka la galay. waxaan xalay idiin sheegay in gabadh unemployment qaadata oo magaaladan joogto oo caanoo la yaqaano
daawud anaa kuu sharxi doona oo caana oo la yaqaano oo magaalada joogta gabadh ay aamintay ay walaal ka dhigatay oo ay meel ka wada shaqayn jireen oo iyadu shaqada geysay ayaa gabadhii kale markii shaqadii ka tagtay unemployment bay gabadhani dalbatay unemploymentkiiba muddo qaadanaysa qoftan unemploymentka qaadanaysa halkan kalena waxaaba lagu qaadanayaa jeeg waa lagu daldalanaya qofta waxaa samaysay waa xafiiskii aan idiin sheegayay wiilkii Minneapolis ee la xiri jiray program gaar ah ayaan qoftaas idinka samayn doonaa dad badan oo noocaas ah ayay qoftaasi damage garaysay damage-na ay ku soo wadaa gabdho badan oo ayuutooyinka la urursan jiray iyana waa ku soo socdaa war qof kastoo war Soomaali baynu nahay war yaara Soomaaliya dhagihiina furta war maanta dhiiqaynu ku wada jirnaa Soomaali community dhulkay galeen maanta adeer iyo awow ayayooyinkii baa la xidhay oo xabsi maanta ku jira kama baxan reer family dhan ayaa maanta kulligood federal prison u socda lix qof oo walaal ah waa arkaysay hooyo iyo labadeeda caruur waa arkaysay hooyo iyo shan caruur waa soo socdaan hooyo iyo naag iyo ninkeedii iyo ciyaalka dhaleen waa soo socdaan culimo waa soo socotaa fanaan waa soo socdaa maanta dhiiqadii waa lagu wada jiraa laakiin ilaahay haynaga badbaadiyo dadka Soomaaliyeedow dadkii waxaan abalay gareeyo maanta fadhi idinma yaalo deeq darajo waxa lagu xidhay wuu abalay gareeyay wuu bilaabay lacagtii lama siinin laakiin lacagtii waa lagu qaataa laga yaabaa qof kasta cadaalad iyo justice ayuu helayaa laakiin waa inaynu isbarxanaa fadhiga ka kaca hadeertadaas aan idinla hadlayo dadka Minnesota deganow qofkii abalay gareeyay qofkii 5 bari qaybiyay iyo qofkii 20 bari qaybiyay iyo qofkii ka badan qaybiyayba walaalayaal gacali xafiiska ka abalay garaysateen taga barinta subax marka waagu bariyo dokumentigiina idinkoo wata looyarkiina la tashada magaciina soo jeegareeya deeq darajo isagoo waxba isku ogeen hadduu wax cuni lahaa oo uu wax dhici lahaa uu ka mid ahaan lahaa dee isagoo laafyoonaya hooyadiisoo xanuunsanaysa oo Turkiga joogta ayuu rabay inuu u tago jaabada ku dhacday walaakiin maanta prison buu ku jiraa federal prison buu ku jiraa dadow Soomaaliyay qof kasta oo Soomaaliyeed isaga ayaa Soomaaliga kala dhibka gelinaya wardadow maanta fadhiga ka kaco please arrintaani waa arrin culus qof alla iyo qofkii abalay gareeyo maanta war kuma yaalo waxaa jira saan idiin sheegay dad 8 bilood qaybinayay cuntada xafiisku ma aha xafiiska eemi oo kaliya deeqa walaalo ma aha xafiiska eemi oo kaliya xafiisyadu waa badnaayeen ma ahayn way garanayaan dadka inta xafiis ee magaalada ka jirtay qof walba wuu garanayaa so far waa 3 xafiis mis afar mid kale lagu jiraa afar weeyaan marka eemi waa xiran tahay laakiin kuwii kale dadkii lahaa magaaladay joogaan dad 6 bilood wallahi qaybinayay oo lacag la siin baan dhahayga saar dad sanad qaybinayay oo jeebkooda isticmaalay oo shilin la siin baan arkay waryaarahoy war magiciini wuu galay lacagtiina waa lagu soo qaatay oo waa la qaatay kuwaas dhaxa qaatay la tagay dawladdiina waa ka soo baxday qofka lagu xirayaan waa adiga laakiin aakhirka waxa imaanaysa in marka la arko akoonkaagi in aad jeeg ay ku siiyeen organization jeeg uu ku siiyay aanay ku sarfin xageen ku sarfay jeegan xageen lagu sarfay akoonkaaga maalinta ku dhacdo ku sarftid waxa weeye dambiilata haddii aadan ku sarfin waxa weeye anigu waa abalay gareeyay waana lacagtiina layma siinin wax khalad ma sameeyno anaaba victim ahaa waxa fiir dhici doonta dad iyaga lacag ka maqan tahay oo jeebkooda isticmaalay in dawladdu ay hadhow iyaga markay arkaan dadkan inay victim yihiin waxoodii la siiyo ayaa dhici doonta maybe ilaahay baaba laga yaabo subxaanahu wa tacaala way dhacaysaa way samaynayaan dawladdu haddii xaq kaa maqan yahay waxna aadan qaadan kaashkaagii isticmaashay rasiidhadii haysay waxaagii waa helaysaa laakiin ta hadda ugu muhiimsan waxa weeye maanta walaalkeen deeq darajo
wariyaheenii caanka ahaa ayay ku dhacday universal TV berito aday kugu dhici kartaa saa dambe aabbahaabay ku dhici kartaa saa kun hooyadaabay ku dhici kartaa waalidiinta beeshika ee guryaha jooga laftooda arrintan qof kastoo waalidka ama adeerka ama aabbaha ka warhay soomaaliyey anigu maanta digniintaas waa idin soo gaarsiiyey berritana wax kale iga fira waa idiin soo wada gudbinayaa tallaabadan qaada ilaahay subxaana wa tacaala walaalkan deeq darajo ha u soo fududeeyo run ahaantii aad baan uga naxay shaksi aad u fiican oo macaan oon qabyaalad aqoonin oo waladul xalaala ayuu ahaa waxaana waanu iswada ogeyn dadku soomaalidu waa iswada jeeb ogyihiin deeq muusan ahayn dadkii fariiriqleeyey lacag u haystay ma jirin aynaw deeq si fiican baan u aqaanaa si fiican baan u aqaana waxaana say ku dhaceen xogtoodii waa soo hela wuu abalagareeyey ma qaadanin biliis soomaaliyay isbaraxa waa ka baxaya masaajidka waa ka baxayaa baan dhahay masaajidkii oo socod maskaxda iga xir waa ka baxayaa baan dhahay Facebook hadda live kan dhageysta si fiican qof walba lawyer-kaagi u tag haddana qofkii aad ka balagaraysay aad waa idin wada salaamaya dhammaantiin barnaamij gaar ah oo waxaa jira aan idiin soo wado oo gabadhaan idin leeyahay ani baloyman bay qaadanaysay iyadoo ani baloyman qaadata ayaa sharcigeeda lagu shaqaysanayay qoftii waxaa ku samaysay magaaladay joogtaa in adeerkeed oo la yaqaano oo Minnesota dhan laga yaqaanay oo awowo la yiraahdo Cusmaan Maxamuud ayay ka xidhay meeshii magaaladay kula joogtaa dad badan oo ayuutooyin gabdhaha ayuutooyin ku jireen ama shaqooyin ay oran jirto in geenaya ama halkan wax ku qoraya oo dhan iyada lafteeda waa la waraysta marka dadkii gabadhaas wax ku darsaday oo dhan barnaamij baan idin qabanaya waana wada garanaysaane idinka laftiinu sharciyadiinu soo baara meel kale ha ka doonina waxa ku qoys qaadataan gabadha ari barooyinka iyadoo qaadanaysa sharcigeeda ay sanadkii xogaaga ku biil garaynaysa ku shaqaynaysa ku qoys qaata marka waa idin jeclahay allah idin xafido insha Allah barito ayaa balanteenu ay tahay iyo wixii war degdegay soo kordha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxaan barnaamijkeena inoogu khatimaa maanta ma jirto iswiid emi gaaral kuma khatimayo maanta ma jirto madax baa furan kuma khatimayo maanta waxaasoo dhan kuma khatimayo maanta waxaan ku khatimayaa walaalkeen deeq darajo ilaahay subxaana wa tacaala gacantuu ku jiro ha ka soo saaro shakhsi fiican buu ahaa xaqana allah ha soo caddeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu